sida awgeed qofka muslimka ahi waa inuu xambaaraa diinta tan oo isku dayaa dadka inuu gaadhsiiyo mas'uuliya haadihi dacwa oo fursad kasta uu helo uu ka faa'iideeyo ilaahay quraanka wuxuu inoogu tilmaamayaa rusushu furaska siday uga faa'iideynayeen nabiyullaahi yuusuf oo xabsi ku jira oo laba wiilu yimaadeen wadakhala macahu sijna fatayaan qaala axaduhumaa innii araanii acsiru khamra وقال الآخر إني أراني أحمل خبزا فوق رأسي تأكل طير منه لما ويل با حبسك الله قال يوم يدوحوا يدي خيان أركيانيقو خمر ولا قاية متكي كالنا وحوا يدي أنيقو خبز مدح كسيدة وشمبرعون أيام بانركي إن نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين بيداي نو شرح تأويلك الرياضة النوشة وحنكو أرجنا قف صوبنا ونكسرنا طهي نبي الله يوسف انت أنو الرياضة ودو الشرح وحكبل بينه يسوي سو شرح يوحى آمن سي يدين الرميسي إني تركت ملة قوم دول بان كايم بيقول أنا إلهي بالرميسين ومشركين وحن راعي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب آبايا شيء دين تودي توحيد كهيد بان راعي بولي markuu isu sheegay wuxuu rumaysan yahay wuxuu yahay intaanu u fasirin riyadoodii fursada yar buu ka faa'iideystay dabeetana markaasuu leeyahay ya saaxiibay sijni arbabun mutafarriquna khayruna min illahu alwahid alqahhar warma ilaahiya badan in la raaca ayaa fiican mise rabbu samawati wal ardi in raacdaan baa wanaagsan dacwo bilaabay waa fursad su'aal la weydiiyay buu isku dayayaa inuu ka jawaabo intaanu jawaabta siinin inuu ka faa'iideysto wuxuu rumaysanaa inuu dadka kan u sharxo imisa fursaa ku soo martay nolosha imisa tijaaro la wadaagtaan imisa jaartiin imisa saaxiibtiin imisa iskuul wada dhigataan imisa jaamacadda wada joogtaan imisa isku dhadhowdiin imisa wax kala iibsan imisa fursaa ku soo martay intee baad noloshaada ilaahay diintiisa uga faa'iideysay wixii fursad ku soo maray hadda furaska dhaqaaluhu idin ma dhaafaan hadday kuu bidhaanta meel yaraad si leedahay waxbaa laga helayaa waad qodaan qofna kama tago laakiin fursadaha diinta ma tijaabinaa inaynu qodno oo isku dayno inaynu dadka diinta u sheegno ayuha alaxiba dacwadda tani afarta wadaad ma saara waxay saarantahay qof kastoo muslima diintan inuu xambaaro qof kastoo muslima bay saarantahay hadduu sultaan yahay hadduu madaxweyne yahay hadduu sarkaal yahay hadduu taajir yahay qof kasta meelo badan aan aniga layga dhegaysanayn baa adiga lagaa dhegaysanaya oo ama odaynimo lagugu qadarinaya ama hantidaada lagugu qadarinaya ama booska dowladda aad ka joogto lagugu qadarinaya oo dadku ay wax kaa dhegaysanayaan aakhira ilaahay uu ku weydiinayaa diintii maxaad ugu qabatay waxaan ku siiyey waxaad haysatay maxaad diintii ugu qabatay ninkaas muslimka ah rabbi quraankiisa uu ku qoray ee ilaa qiyaami saaca quraanka inuu ilaahay ugu dhawaanayno akhrinayno weedha laga tilmaamay waa inuu yidhi tabacu lmursaliin waa rususha raaca buu ku yidhi rususha raaca ilaahay ha loo toobad keeno oo dembi dhaaf la weydiisto الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى قصة النكاس وحين وقت المامي اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون والراعب يريد أن أجرد ويدي سنين waxay culimadu yidhaahdaan axsan wasiila lidacwa waa inaad qofka dan ka lahayn hadduu qofku kugu tuhmo inaad mansab iyo maamuus ku doonayso inaad lacag iyo xoolo ku doonayso
inaad jeebkiisa ku baadhanayso waxay u badan tahay inaanu hore kuu dhegaysanin walidaalik ayuu ninkani markuu tolkii la hadlayay wuxuu leeyahay inay hanuunsan yihiin wuxuu ka horu mariyey inaanay dan kala lahayn ittabicuu man laa yas'alukum ajran ajar adduun inaanay idinka doonaynin maxaynu diinta u sheegaynaa inaynu aakhiro ku badbaadno inaynu ilaahay ku raalli gelinno inaan ilaahay ajar kaga helo ولذلك baa ilaahay rusushiisa markuu ka warramayo في سورة الشعراء أما صور ككلبا فاتقوا الله وأطيعون مركا إلى هذا محيك حكسينيا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وحأجر إذن كما الدورين يدو إلهي أقيهي رسوشو إن أنا يددك تشيب كود الدورين إن ما وحبينك قاتان أنا الدورين أيا وحل يددك وحد عضيسان قل آياتك كالي dadka waxaad u sheegtaan baa la leeyahay inaydan wax xoolaa ka rabin wax ajara inaydan ka doon wahada huwa al-aslu lid-diin asalku diintu waa in ilaahay loogu dhawaado nacam haddii ninka sheekha ah yaan jeebkiisa wax ku jirin habeen iyo maalinbana uu carruurta qur-aanka u dhigaya ama kan wax dhigaya wax la siiyo weeyaan laakiin intiinan kale xoogsata idinka ajar dooni maysaan miya ama se dacwa idinma saara miya intiina xoogsataa weedhoodu ka geli og tahay dadka intaa ajarka ku siisaan kana shaqa uga dhigtayna waxa moodaysaa inuu shaqaysanayo oo xoogsanaya dee waa wadaad xoogsanaya laakiin asalku waxa weeyaan diinta inaan laguba xoogsanin baa asal ah asalku waxa weeyaan dadku inay dareemaan inaad diin waddo inaad jeebkooda baadhanaysa inaanay moodin asalku waa kaa asalku waa inaad waxaad sheegaysa janno ku raadiso نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي بيعة العقبة الثانية صحابة دي أنصارت مركوية مادين أي هشيس كلا قالين هشيس بي لقالين إنو سوهي جرودو مركاسي أي كم من عنيان وحي نفتو دي مالكو دي دمركو دي عرورتو دا سيدا يو إلاليان سلم دين يو إلالين دونا النبي عليه الصلاة والسلام وليبا يقو saxaabigu ugu yaraa markay sidaahay nabiga baycada la galay wuxuu yiri war suga war hadda nabi maxamed qaadataan arab oo dhami meel qura idin ka soo wada tooganaysaana waa la idin la diriri doonaa waxay dhaadeen dhaaf wiilka yarow saasaanu nabiga heshiis kula galeynaaye su'aal bay nabiga weydiiyeen alayhi salaatu wasalaam xadiidka xasanka fama lana bay dhaadeen haddaanu ku difaacno oo diinta nafya maalba u hurro oo gaaloo dhan u babac dhigno maa lana maxaanu annagu leenahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuma odhanin aniga dabadayba madaxweyneyaal noqonaysaan ama wasiirraa noqonaysaan iminka dadku waxay la qabo waxaad odhanaysaa dee maxaan leeyahay marka aadna waxoogaaba ku soo gaadhi doona meel ay kaa soo gaadhaanba mantiqa bini aadamka ee caadigii waa kaa waxaa ila qabo maxaan leeyahay baa ku xigta saxaabadu waxay dhahaan famaa lana maxaanu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ma odhan dabadayba ansaari wax maamulaysaa haniimadaa xoo idin burin doonaa xoolaan idin siin doonaa magacyo maamuus baa heli doontaan midna laguma odhan lakum uljanna buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad diinta u hiilisaan jannaa leediin asalku waa kaa markaa diinta qofkii maal gashada caqli gashada xoog gashada إلهي بو وحكر رادينيا سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى بو وحكر رادينيا ما هم الله صار شغتك أصليا وميل إلهي لغلا حوكسده وميل إلهي أجر لقر راديا سبحانه وتعالى لكن هدين نقطة وحوقا لغو حوكسده وذات كان الله أركين حوكسن نمن حوكسن إياه دين تفافي ميسو دين توحي فافي سامركا دمانتين قادان markaad ku xisaabtanto mantiqa inaad ilaahay wax ka raadinayso marka aanad odhanin qolaanu lacag siinaayo noo qaabilsan aad tidhaahdaa aniga mas'uuliyaddu isaarantoo fulinaya ana mas'uuliyaddu isaarantoo fulinaya marka aanad odhanin haddaad shaqo soo yara hesho waar bal qur-aanka idinku sii dhiga anigu waxoogaa baa meel halkeera ka helaya wadaadkii in yar isku duwaaba hadduu yidhaahdo sii wada
waxoogaa lacagaa meel ka muuqatee dad minis lacagtaa inooga qiimo badan inaynu diin sheegno waxay ahayd inaad lacagta beerdarayso si aad diin u sheegto inaad tidhaahda ilaahay waxaan kula baacmushtaraynayaa wakhtigaasi saacaddaa inaan wax dhigo walow hal ilmana wax u dhig hal qofa hanuuni wakhti aad diin ku sheegto waayi maysid wakhti aad xilkaa qaaddo waayi maysid cid aad u sheegtana waayi maysid qof kasta cid ka diin yar baa joogta qof kastoo inaga mid ah cid ka diin yar baa joogta oo waxuu u kordhin karo intay doontaba ha leekaatee midaad tidhaahda war khamriga iska daa iyo midaad tidhaahda war salaada tuko midaad tidhaahda war ilaahay ka cabso midaad tidhaahda war gabadha si fiican u qab waa diin wuxuba idan qofka muslimkaahi wuxuu sheega ma waayo